الفنانة الكبيرة حليمة خليف مغول. وارون صدرada saamaynta xoogan leh ee Yuusuf Xaaji Aadan Qabille Maqal waxay aad fanka uga dhex muuqatay xilligeedii waxay ahayd qof leh mustaqbal wanaagsan oo ay ku soo jiidatay dadka ku hadla luqadda Soomaaliga ee ku sugan geeska Afrika iyo meelo kaleba codkeeda macaan ee 40 sano iyo dheeriga soo socda sii jiri doona waa mid aan ka suuli doonin inta qof ku hadla Soomaali uu ku nool yahay adduunka oo dhan دلمبا بما أنا هي دراد عاي دلمبا بما أنا هي دراد عاي كلا قادي بنهايو كل يقان ما تهايو تدمدي فوقاتيو bishii Maarso 25keedii sanadkii 2004 markii dhinaca dhulka loo dhigay ama la aasay Maqal oo munaasabad aas midii ugu weynayd Muqdisho abid loogu maamuusay xilligaas anigu waxaan ku sugnaa Dubai waxaana waraysiye Maqal ku saabsan aan la yeelanayay tiro yar oo fanaaniin ah kooxdaas fanaaniinta ah ee aan waraystay waxaa hogaaminayay ruwaayad sameeyihii caanka ahaa ee Cali Sugulle iyo Saxardiid Maxamed Cilmi oo ku magac dheer Jabiye oo ah nin qayb muhiim ah ka ciyaaray in Maqal noqoto qof caan ah isagoo kaalinta koobaad ee jilliinka ruwaayada taxana ah iyada ka dhigay sanadihii 1960meeyadii waxaa sidoo kale kooxdaas ku jiray Axmed Yaasiin oo ahaa heesaa waabari ka tirsanaa Axmed Maxamed Guutaale jilaa hore oo waabari ka tirsanaa iyo Jaamac Axmed Ibraahin Baqayo oo ahaa jilaa reer Jabuuti ah dadaal aan ku ururinayo warbixinta ku saabsan noloshii iyo raadkii muusiga Maqal darteed ayaan si joogto ah ugala sheekaystay Saxardiid Maxamed Cilmi Jabiye oo ah riwaayad sameeye aad loo qadariyo iyo waliba mira sameeye Maxamed Aadan Dacar oo ah heesaa caan ah mirahana sameeya Xasan Xaaji Cabdullaahi Xasan Ganay riwaayad sameeye iyo abwaan Shamis Abuukar Guduuda Carwo gabadhii ugu horeysay ee iyada oo heesaysa codkeeda laga baahiyay radio Hargeysa Hiba Maxamed Hiba Nuura heesaa caan ah oo waabari ka tirsanayd riwaayado badanna la dhigtay Maqal Saciid Maxamed Harawo iyo Cabdulkariim Faarax Qaari Jiir labo mulaxamiiste oo caan ah kana tirsanaa kooxdii waabari labaduba waxa ay waqti dheer la soo shaqeeyeen Maqal iyagoo heesa badan oo ay ku caanbaxday codadka u sameeyay iyo Cabdi Yuusuf Ducaale Boobe cilmi baare dhaqan yaqaan ah suugaantana ku xeel dheer waxaan sidoo kale la hadlay Faadumo Khaliif Cumar oo ah da'dii ka weyneed Maqal waqtigaasna xamar ku noolayd kadib dhimashadeedii magaalada Amsterdam 19 Maarso sanadkii 2004 su'aashii ugu horeysay ee maskaxdeeda ku soo dhacday waxay ahayd maxaa xiigi doona Maqal ma ahayn oo kaliya caan heesaa caan ah iska timid namada daalisay farxadna gelisay dadka Soomaaliyeed kadibna ka tagtay laakiin waxay noqotay mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu muhiimsan ee soo mara muusiga nool waxna lagu hago ee dadka Soomaaliyeed
iyo weliba shay iyo hanti qaali ah oo qaranka ka baxay. erayada fanaaniinta aan ka waraysta magool oo ay ii sheegeen waxaa ka mid ah in magool ay lahayd cod u gaar ah oo aan la koobiyeyn karin ama la shabihi karin. kulankaygii magool markii ugu horraysay waxaan ku arkay bandhig lagu qabtay magaalada Dubai ee caasimadda isku tagga Imaaraadka Carabta.